wasiirada dhalinyarada iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casoowe ayaa waxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya kaga qayb gashay cadadka labaad ee bandhig dhaqanka fan iyo farshaxan ee wadamada bariga qaaradda Afrika. bandhigaas waxaa sanadkan ka qayb qaatay wadamada kala ah Itoobiya oo martigelisay Burundi, Djibouti, Suudaan, Soomaaliya, Uganda, Suudaanta Koonfureed, dalka Tanzania iyo sidoo kale dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. sanadkan bandhigani ayaa waxaa halbeeg loo qaatay xoojinta kaalinta dhaqanku kaga jiro horumarinta isdhexgalka wadamada degmada Geeska Afrika. bandhigaasi dhaqan farshaxan iyo sidoo kale fan ee wadamada Geeska Afrika ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo wasiiro ka socday wadamadaasi koran ku sheegay iyadoo halkaasi looga wada xaajooday sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka dhaqanka wadamada degmada Geeska Afrika. wasiirada dhalinyarada iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casoowe oo ka wafdi ballaaran oo kamid ah kooxaha farshaxanka dhaqanka ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa bandhigaasi ay kaga qayb qaateen xagga bandhiga farshaxanka oo ay ku soo bandhigeen agabyada kala duwan ee dhaqan ee Jamhuuriyadda Djibouti. qaybta ciyaaraha dhaqanka ee dhalinyaradana waxa bandhigaasi ay ku muujiyeen ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqan ee shucuubta Jamhuuriyadda Djibouti. waxaana bandhigaasi si gaar ah loogu amaanay doorka Jamhuuriyadda Djibouti sanadkan ay ka qaadatay qabanqaabada iyo ka qaybgalka howlaha shaqo ee bandhigaasi ay ku bohobeen wadamada degmada Geeska Afrika ee ah midda kulminaysa dhaqanka farshaxanka iyo fan ee wadamada degmada Geeska. dhalinyarada dhaqanka oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay wasiirada dhalinyarada iyo dhaqanka ay uga mahad celiyeen ka qaybgalka barnaamijkaasi ballaaran ee dhaqan ee degmada Geeska Afrika iyagoo tilmaamay in si gaar ah ay u soo dhaweynayaan ciyaaraha kala duwan iyo aqoomihii dhaqan ee halkaasi ay ka qaybqaateen taasoo keenaysa xoojinta isdhexgalka dhaqamada wadamada degmada. la socod wanaagsan bishu tahay 20 bishii saddexaad 2025 waxaa noo furantay sida warkiisiinba munaasabadii lagu soo bandhigayay dhaqamada kala duwan ee East Africa taasi oo ay fursad noo siisay wasiiradda dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casoowe si aan uga qayb galno. shalay baan imanay afar cisho noo soo doontaa barnaamijkaasi waxaan ku soo bandhigaynaa dhaqamo kala duwan Soomaalida, Anfarida, Carabida oo isku jira. marka saaka ayay bilaabatay shaqadaasi afar cisho noo soo doontaa hadii Ilaahay ilaahdo ilaa bisha 24 ay ka gaarayso noo soo doontaa. waxaan rajaynaynaa guul baan rajaynaynaa iyo wax qurux badan inaan ku soo bandhigi doono oo aan ka jawaabi doono baaqa ay fursad noo siisay wasiiraddeena Dr. Hibo Muumin Casoowe. waa u mahadnaqaynaa dowladda Djibouti ha noolaato, madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ha noolaado, kooxda dhaqan ha noolaato. wasiirada dhalinyarada iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casoowe oo bandhigaasi khudbad ka akhrisay ayaa waxa ay sheegtay in Jamhuuriyadda Djibouti ay soo dhaweynayso horumarinta bandhiga dhaqan ee wadamada degmada Geeska Afrika. maxamed cabdi ayaa soo jeedinay khudbadda halkaasi ay ka akhrisay wasiiradu. la socod wanaagsan. waxaa farxad iyo sharaf weyn ii ah inaan maanta ka hadlo bandhig faneedka ee la xiriira horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee bariga Afrika, taasoo munaasabadani ay muhiimad weyn u xambaarsan tahay dalalka degmada. waxaan halkan aan uga mahad celinayaa dowladda Itoobiya iyo dhammaan kooxihii sida wanaagsan u soo qabanqaabiyey munaasabadan aadka u ballaaran. waxaan halkan aan iskugu nimid inaan u dabaaldegno qiimaha ay leeyihiin hidaha iyo dhaqanku. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaanu xoojinno xiriirka midaynaya dadkeenna iyo dalalkeenna. anigoo ah wasiiradda dhalinyarada iyo dhaqanka ee Jamhuuriyadda Djibouti, waxaan si sharaf leh u aqoonsanayaa kala duwanaanshaha dhaqameed ee qaaradeenna. taasi ayaa waxay ka turjumaysaa inay waajib nagu tahay ilaalinta iyo kobcinta dhaqamadiina. waxaan maanta aan u dabaaldegaynaa horumarinta nabadda oo astaan u ah midnimada, wadajirka iyo iskaashiga dalalka bariga Afrika. arrintan waa mid muujinaysa hodannimada fankeenna iyo dhaqamadeenna. waxaan haysannaa fursad aan ku tusno adduunka in bariga Afrika ay tahay xarun ugu karti firfircoon, hindise iyo oona leh dhaqamo wanaagsan. anagoo muujinayna wax soo saarka fanaaniinta iyo hal-abuurayaasha, waxaan uga gol xaaraynaa mustaqbalka halkaas oo dhaqanku uun ahayn dhaxal keliya oo loo ilaalinayo, balse waa mid ahmid weyn xambaarsan
oona u horseeda horumar waara. waxaan sidoo kale doonayaa inaan hoosta ka xariiqo muhiimadda dhallinyaradu ay u leeyihiin arrintan. dhallinyaradu waxay yihiin kuwo dhexli doona waxyahan dhaqanka, sidoo kale waa wakiilada naga caawin doona inaan dhisno mustaqbal wanaagsan, balse iyagoo loo baahan yahay inaan u gudbinno dhaqamadeenna annagoo sidoo kale ku dhiirigelinayna in ay si buuxda u ilaaliyaan hiddaha iyo dhaqankooga. marweyne mudanayaal, bilowga xafladdan waxaan dhammaantiin idinku marti qaadayaa inaad si diiran u soo dhowaysaan fanaaniinta si ay uga bogotaan waxyaha kala duwan ee bariga Afrika ay u soo bandhigayaan, isla markaana ay si firfircoon uga qayb qaadanayaan munaasabaddan aadka u ballaaran. munaasabaddan ayaa waxay timi lagu xoojinayo wadajirka dalalka degmada iyo horumarinta dhaqanka oo horseed u ah nabadda iyo horumarka.